waad salaamantiin dhammaantiin akhyaarta hawada nagala socota marka ee barnaamijkan heesaysa waanu dareensanahay dadka dhammaantood inay doonayaan qof waliba inuu noloshiisa horumar gaarsiiyo ama uu wax ka gaadho ahdaaftiisa nolosha saadarteed qofka waxaa looga baahan yahay marka uu samaynayo hawlaha kani samir fara badan iyo dadaal fara badan si aad guushaada u gaadhid waxaa lagaaga baahan yahay inaad samaysid hadal yar iyo hawl badan sideedaba waxay tiraahdaa Soomaalidu hadal yar iyo hawl badan ayaa horumar lagu gaadhaa qofku sidiisaba nolosha intuu ku jiro waxa ka hor imanaya caqabado aad fara badan isbeddelka sidiisaba ma fududa marka la samaynayo wuu adag yahay waan ognahay markaa inay jirto cudurdaar fara badan qofka haysta haddii aad tahay qof markaa ku sugan dhulka aadka u hooseeya macnaha oo sida markaa Afrika haddii aad ku sugan tahay dhulka hodanka iyo haddii aad ku sugan tahay dhulka dhexdhexaadka intaba waxaad samayn kartaa isbeddel kaliya waxa aad arrinta kaga gudbi kartaa adigoo joojiya arrimaha kale waxaad joojisaa inaad ka jeclaatid horumarka shaqada iyo hawlaha adag hurdada fadhiga inta meel la fadhiisto la sheekeeyo in badan in lagu mashquulo dadka kale iyadoo aanay ku jirin wax macnaa in qof aad ku mashquulshin waxa lagaaga baahan yahay markaa inaad intaad ka gudubto aad samaysid inaad samaysid vision focus wixii aad ugu dhaqaaqi lahayd guushaada wixii ku hooseedi lahayd inaad guulaysan lahayd haba yaraatee ma jiraan wax caqabada oo kaa hor istaagaya guushaada ha badnaato ha yaraato waxay doonto ha ahaato waa inaad joojisaa cudurdaarka waxaan kula hadlayaa adiga in badan oo ka mida nolosha waxaad isku dayaysaa inaad samaysid cudurdaarkaasi waxa uu dib u dhigayaa noloshaada dambe iyo mustaqbalkaaga waan xanuunsanayaa mararka qaarkood ma dareemayo markaa I'm not feeling well waxyaabahaas oo kale inaad shaqadaada jeclaatid nooc kastaba ha ahaato haddaad doonaysid inaad horumar samaysid waa inaad waxaad qabanaysid jeclaataa waa inaad jeclaataa horumarka aad samaynaysid waa inaad jeclaataa ficilada aad samaysid waa inaad isweydiisaa maalintii waxyaabaha markaa aad qabatay maxay ahaayeen miskiin baan maanta wax siiyey maanta waxaan qabtay shaqada caynkaa iyo caynkaasa maanta waxaan booqday maktabadda oo waxbaan soo akhristay maanta waxaan siyaartay qof xanuunsanaya maanta waa inaad waxaad ka fakartid ay noqdaan positive maanta waxaan tagay meesha jimicsiga saaka goor horaan kacay saaka si fiican baan u akhristay casharadaydii saaka shaqadayda si fiican baan u qabsaday waa inaad waxyaabaha positive-ka mar kasta aad naftaada ka fakartaa jooji cudurdaarka mar labaad iyo mar saddexaad ayaan ku leeyahay cudurdaarku waa waxa dib kuu dhigaya cudurdaarku waa waxa kaa dhigaya qof liita sideedaba waxyaabaha ka mid ah inaad tiraahdid balwadda ma joojin karo adigu sigaarka ma joojin karo qaadka ma joojin karo waxyaabahan aan isticmaalay ee markaa balwadaya waad joojin kartaa haddii aad tahay qof adag waad joojin kartaa haddaad tahay qof nool waad joojin kartaa haddaad tahay qof xisaabtamaya hadda ka hor ayaa waxaa la sheegay dadkan sideedaba in ay ku go'an tahay wax la yidhaahdo geerkaasoo kuu diidaya inaad horumar samaysid waxaan ku leeyahay geer baa kugu go'an geer weliba reebis ah oo kii dambe ee gaadhigu xagga dambe u socdo ayaa kugu go'an kii hore ma aha kii dambaa kugu go'an iska saar geerkan dambe kugu go'an ee dibu socodka ah Dr. Ibrahim Fiqi ayaa wuxuu yidhi anigoo maalmaha ka mid ah gaadhigayga raba inaan kaxaysto ayaa waxaan furaha ku rogay si lama filaana wuxuu yidhi gaadhigii wuu dhaqaaqi waayey wuu shaqayn waayey wuu socon waayey sababtu waxaan idhi waa baasiinka iyo batroolka waa ka bedelay buu yidhi si kasta awood baan u isticmaalay wuu shaqayn waayey
markaan ogaaday buu yidhi inuu gaadhigaygu shaqaynayo ayaan waxaan ugu yeedhay raggii samaynayey ee ka shaqaynayay baabuurta muddo nusu saaca ayay ku soo xaadireen waxay soo saareen ciladii gaadhiga waxay ii sheegeen in gaadhigaygu ku go'an yahay geer markaa reefisa wuxuu yidhi waxaan idhi buu yidhi gaadhigayga waxaa maanta u diiday inuu hore u socdo waa reefis ku go'ay ama geer awood baan u isticmaalay inaan kaga saaro waan kaga saari waayey buu yidhi waayo buu yidhi wax walba ma xalismayaan haddii awood lagu dayo waxay doonayaan maskax bay doonayaan waxay doonayaan aqoon fara badan bay doonayaan waxay doonayaan in wax la barto waxay doonayaan in wax la ogaado wuxuu yidhi dad fara badan oo ka mida dadka ayaa waxa ku go'an geerka wuxuu is leeyahay horumar samee laakiin geer baa ku go'an u diidaya inuu horumar sameeyo geerka haddaba waa inaad iska saartaa sidee baad isaga saaraysaa geerka ma aha xoog ma aha awood waxaad isaga saaraysaa cilmi waa inaad wax barataa waa inaad wax ogaataa more you get more you know wax badan haddaad heshid oo xoga wax badan baad ogaanaysaa caalamka dadka wax ka beddelay ma ahayn dad meel kale ka yimi ma ahayn dad koon kale ka yimi ma ahayn dad malaa'iga waxay ahaayeen bashar adigoo kalaa maskax badan may haysan midtaada ka badan waxay haystaan maskaxda adiga kugu jirta fakarka aad aaminsan tahay ee ah inay maskaxdu leedahay xaddi in awooddaadu ay xadidan tahay iska jabi oo iska saar ma jirto wax haba yaraatee xadida ilaahay wuxuu ku siiyey quwad bilaa xuduuda come on guys waa inaad samaysaa isbeddel noloshu sideedaba ma aha inaad intaad meel fadhiisatid tidhaahdid hebel baa waxaa sameeyey hebel baa sidan sameeyey hebel baa sidan yeelay adiguna aad tidhaahdid markaa way adag tahay inaan saas sameeyo way adag tahay inaan waxaan wax ka beddelo come on guys you can change the life waad beddeli kartaa noloshaada waad samayn kartaa wax kasta qof bini aadana sameeyo ninka magaciisa la yidhaahdo wildi sam colonial 17 hotel oo cunnada ah ayuu ku guul daraystay aabbihiis ayaa isna wuxuu ku guul daraystay 3,200 oo baanki siduu u sameeyo shirkadda Hond aad arkaysa hadda caalamka meeshay gaadhay waxa lagu sameeyey dayn Congress-ka America ayuu tagay madaxweynaha waxaana uu codsaday markaas waqtigaasi inuu siiyo lacag malaayiin dollar uu ku sameeyo shirkadda Hond way la yaabeen raggii markaa ka shaqaynayay meeshaas madaxweynuhu wuxuu yidhi hala siiyo wuxuu ku soo celiyey lacagtii 2 bilood gudaheed waxaana uu sameeyey shirkad ay ka shaqaynaysa 300,000 oo markaa shaqaale wuxuu soo saaray 300 milyan oo gaadhi oo adduunka uu dacaladeeda u iibgeeyey hadda waad arkaysaa meeshay marayso shirkaddaas ma aha inaad tirahdid waxba ma haysto waxna ma bilaabi karo imise aan waxba haysan oo wax bilaabay imise aan waxba haysan oo nolol horumar gaadhay imise aan waxba aqoon oo soo baxay oo wax bartay imise adduunkan xidigaha caalamka ee loolamaya ay marka taariikhdooda lagaaga sheekayo ay zero ka soo bilaabeen you can start zero waad ka bilaabi kartaa zero haddaad taagan tahay samee dhaqaaq samee waa inaad dhaqaaq samaysaa dhaqaaq sakarka jooji oo dhaqaaq samee adaan kula hadlaya ma la hadlayo qof kale waa inaad dhaqaaq samaysaa waa inaad socod samaysaa si aad isbeddel u samaysid waad isbeddeli kartaa waadna beddeli kartaa naftaada haddii aad tahay qof adag wasalaamu calaykum